Boosaaso 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 aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhawayntan meeqaamka iyo melgaha sare leh ee aad igu soo dhawayseen maanta Boosaaso dib bay ii dhashay Boosaaso wax badan bay u baahan tahay Boosaaso xaaladeeda waa la soconnaa meesha ay marayso faragel jirana hoos baa loo dhaqaa nacasna loo sheegi maayo nin ragina waa ogyahay Puntland maanta meesha ay marayso iyo meesha ay shalay ka bilaabatay Puntland waxa loo soo maray waddo aad iyo aad u dheer waxa la isku soo kabay la isku soo xiray suuf iyo xanjo waxa lagu dhisay geed hoostiis waxa wax lagu bixiyay gabdhaha aan daalin cashuurtooda dadaalkooda dhididkooda iyo dhaqaalahooda waxa Puntland dhisay dad isku niyad ah isuma dhiibata ah iscalool og wax isu quur leh himilo iyo hadaf kale dalkan Puntland maanta waxa moodaa anigoo aan hoos u gelayn xaaladda oo la sugayo madasha ku habboon iyo kelmadda iyo hadalka xubintiisa inay gacanta u gashay dad aan jiritaankii jahadii aan dan ka lahayn ee jeebkooda iyo jidinkooda u nool waxaynu ognahay amnigeennu meeshuu maraayo waxaynu ognahay dhaqaalaheennu meesha uu maraayo waxaynu ognahay magacii Puntland sida uu dhulka ugu dhacay iyo halka uu maanta maraayo waxaynu u baahannahay nolol waxaynu u baahannahay nabad waxaynu u baahannahay dhaqaalaha oo dhisno waxaynu u baahannahay siyaasad cad oo waxbarashadeenna ah waxaynu u baahannahay talo weyn oo aad iyo aad looga fekeray looga dooday loo sahmiyey dalkan iyo dadkiisuna nolosha ay u qalmaan la gaarsiin lahaa waxaynu nahay ummadda Soomaaliyeed dulmanayaasha kaliya ee ku nool dunidan gabdhaheennu waa umur raacayaan carruurteennu way dhimanayaan waxay ku dhimanayaan dhammaanteed badda dhalinyarteennii shaqo la'aan ayaa jirta waxaynu u baahannahay inaynu arrimaha wax ka qabanno haddii ayna wax ka qaban dadka ay sugaysa waa aniga iyo idinka waa codkiina haddaynan ka qaban dhallaanka mustaqbalku inama cafin doonaan dhalintii Soomaaliyeed waxay ku dhimanayaan badaha waynu ognahay waxaana haysta shaqo la'aan dad dan kale waxay u dhaxeeyaan magafe mawjadaha badda iyo manaxa siyaasi ah waxa ayaamaha ka noqotay dabeecad in marka hoggaankii hagaasay uu noqday kaliya halka uu ku toontoonsanayo qofkii wax fiican ka hadla xamar baa laga soo dirayaa farmaajo soo dirayaa khayra soo dirayaa himiladii iyo hankii markii lagu fashilmay markii ummaddan hankii ay lahayd dib looga dhacay marka hantidii ay gacmo nabad aan hayn galeen markii musuqmaasuqii baahay markii sicir bararkii baahay markii la daabacday lacag dadka hortooda lagu daabacay markii musuqmaasuqa ismatatarinta
iyo melgihii ummadda oo meel looga dhacay in meel looga dhaco nin kastoo abwaan oo hadla nin kastoo shiikh oo hadla nin kastoo siyaasi oo hadla nin kastana la yidhaahdo xamar baa laga soo diray dadkayagu waxay rabaan baanu ognahay waxay rabaan midnimo waxay rabaan horumar waxay rabaan shaqo waxay rabaan soomaaliya oo sharafkeeda ciskeeda qiimaheeda horumarkeeda sharafteedu dib u soo laabato waxay rabaan soomaaliya meeqaam sare iyo melga weyn kulle adduunka waxay rabaan soomaaliya caalamka ka muuqata meelan sidaa rabin ma rabtaan miyaynu yeeli karnaa maanta shacabkayagu inuu noqdo buuggii feegaarka ee carruurta maya puntland way ka weyn tahay puntland horay bay u soconaysaa puntland iyadaa dhistay federaalka puntland iyadaa ka dhistay mar kasta puntland waxay leedahay waajibaad dheer oo ay meel feeg bartay dhiiggeedii iyo dhacaankeedii iyo dhaqaalaheedii dhalinteedii ayaa ku dhintay soo celintii qarannimadii qaranka soomaaliya halyaygii himilada fogaa koronel cabdulaahi yuusuf axmed waa kii u dhaqaaqay waa kii wafiila soomaaliya dib ugu celaya dalka miyuusan hore sidaas meenta soomaaliya loo dhisin in soomaaliya dib u hagaagto maanta miyaynu gacan bidixay karnaa ninkaynoo sheegaya maanta soomaaliya hore u socon mayso soomaaliya puntland duminaysa miyaynu ka yeelaynaa siyaasigaan hal lahayn siyaasigaan hamilo lahayn siyaasigaan hoggaankiisu caddayn siyaasigaan siyaasaddiisu qeexnayn ee ka gabbanaya miiska hoostiisa ku jira kelmaddiisuna cashuurna ku addamaya ha joogo jala waxaynu u baahannahay siyaasi kelmad leh hoggaan himilo leh hantida ummadda dhowra dadka hanuunsha arrimahooda waaga yihiin hantida ummaddana dhowra himilo fog iyo hoggaan caddaalada iyo leh soomaaliya waxay u gooda hoggaanka markaad hoggaanka ku rafato maaha shalayto mudane cabdiwali maxamed caligaa saaxiibkay inuu yidhaahdo farmaajo waa madaxweynaha keliya ee daacadda ah saaxiib baan la ahay 5 bilood ka bacdina haddayna yidhaahdo waa gacan bidixinaya waana duminaya miyaynu ka yeelnaa maya dalkani hore buu soconayaa annagu waxaanu ognahay tan saanu ku dhisnay annagu waxaanu ognahay tan qiimaha inoogu fadhido annaga tani waxay noogu fidaa dhacaankayaga dhiiggayagii dadkani waa dadkii shalay uu ka dhashay yaasiin cismaan waa ninkii shalay yaraa ka xarraga qaatay ee yidhi gumaysigii ka yeeli mayno inuu dadka qabyaaladeeyo ka yeeli mayno inuu kala qoqobo ka yeeli mayno inuu himiladiisa iyo hadafka talyaaniga ku guulaysto yaasiin cismaan buu ahaa kii dardaarmay yaasiin cismaan buu ahaa markii kelmadda ugu dasay dhimanaya ninka kula damay cabdulaahi ciise kama yeelayno marka siyaasi hankiisa iyo himiladiisu yar tahay inuu noo sheego hadafkana naga dhumiyo markay ku fashilmeen dhaqaalihii dalka markii wax kasta la sameeyey markii baarlamaankii iyo xeerjajintii horteenna lagu bahdilay lagu kufsaday aqbali mayno maanta inaanu yeelno maya waxaan haddaba idiin sheegayaa puntland inay hagaagto ma rabtaan maanta ayay talo u taal xildhibaanadu waa hoggaankii qaranka hoggaamiyuhu waxaa soo saara hoggaamiyaasha waa xildhibaanka haddaad rabtaan 5 sano kale inaa oydaan 5 sano dambe in dalkiina ita maalgashi mugdigelin laydinku sheego 5 sano dambeeto in jidadkii gelgelin noqdaan
shan sano dabatay lacag leedu ku daawaco shan sano dabatay holiday loo soo diyaaran raaco shan sano dabatay in abaar dhacdo waxba laga qaban oo diyaarado la saarnaado doorta kuwii hore iyo kuwa lamida hoggaanku waa xildhibaanada waa inaad kulligiin daba gashaan isimada waa inaad daba gashaan nabadoonnada waa in la soo saaro xildhibaano meeqaam leh oo hoggaamiyaal ah oo isuma dhiibata ah oo og dalkan halku ka yimi iyo halkuu ku socdo ugu dambayntii dhallinyarada iyo haweenka ayaa dulmanayaasha dalkeenna iyaga ayaa shacabka ugu badana waa inay helaan xuquuqdooda waa inay helaan dalka meeqaam ka istaahilaan waa inay hooyada bulshada joogta goobaha tabaandhada ama ayada gadaysa musqusha aan haysan dawada aan haysan daryeelka aan haysan caafimaad waa inay heshaan daryeelkaasaan la noonahay dadaalkaasaan u wadaynaa dadka iyaga iyo dadkiisa waxaan gaarsiinaynaa doorasho waxaanu gaarsiinaynaa madax ka dabqanaya qof saxa iyo boos saxa ayaa imaanaya waa maasatiin waa iswaraysanaynaa keli iyo koox baan isu waraysanaynaa jaamacadaan ka hadlaynaa annagu ardayda u yeeran mayno ee ardayda waxaanu ugu tegaynaa iskuuladooda calooshaanu ka taabanaynaa macalinkaanu ogaanaynaa askariga baahidiisaanu ogaanaynaa dadkay xeeb joogtayaan gaaraynaa xoolaha duunyada miyiga iyo muwaadiniintaan gaaraynaa dhaqaalaha dalkaan dhisaynaa guulaysta puntland boosaaso soomaaliya sharafkaa soo noqdo himiladii halka ummaddaa soo noqdo ha hagaagto waxaan fariinta ugu dambaysa waxaan u daray dowladda federaalka waxaan leeyahay dowladda federaalka puntland qof kasta oo muwaadin ah iyo maamul goboleed kasta wuxuu leeyahay waajib qaran oo saaran waajibka waa mas-uuliyad wadareed puntland waajibkeedii way qabsatay xuquuqdeedii bay rabtaa hal taano hal daqiiqad hal sekan ka gaban mayno indhaha ka qarsan mayno xuquuqda dadka iyo dadkiisaan rabnaa waxaan rabnaa in dekedaha la dhiso waxaan rabnaa in laamiyada la dhiso waxaan rabnaa hay-adaha federaalku inay ka howlgalaan dalka waxaan rabnaa in dadkani xuquuqda ay lahaayeen ay qaataan waxaan u sheegaynaa sidoo kaleeto gobollada sool iyo sanaag oo wax badan wax layga weydiiyey oo aan ka gaabaday maanta ayaan sugaynaa dalkeennu waa mid puntland mid weeye dhacaan kasta dhaqaale kasta tala kasta oo dalkayagu dib ugu soo noqonayo ka gaban mayno waxaan u sheegaynaa muuse inuu iskaga baxo gobollada dadkani waa daraawiish dadkani waa kuwii shalay ingiriiskii iyo kii saanta caddaa hungeeyey dadkani waa aswayel dadkani waa kuwii ka xarraga qaatay muusow saraakiisha kula joogta hargeysa ee buurtilla wixii ka dhacay iyo baraagihii lagaba ogaa waa kuwii ka xarraga qaatay wax kasta oo dhacay kama xarraga qaadan doono waanu ka xanqaadan doonaa gabadha laascana ka ooyaysa ma sii ooyi doonto dhumay waxa ka dhacaya ma aqbali doono annaga hana khasbin waxaana rabin hanagu khasbin ka bax deegaankaas haddii aadan ka baxin wixii ka dhaca iyo dalka Soomaaliya inuu dib ugu laabto dhibaato ma rabno waanu ka qaangaarnay nabad baanu rabnaa haddii nalagu khasbo wixii wadada istaaga waanu qabanaynaa si adag waanu ka leexinaynaa wadadayada guulaysta salaam noolada